kooramka kalfadhiga tobaad kulankiisa koobaad ee mudanayaasha golaha shacabka oo ku furmay 156 xildhibaan isla markaana uu shir gudoominayay gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk ee Soomaaliya mudane Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan waxa ugu horeyn mudanayaasha golaha shacabka ay ansixiyeen xubin cusub ee guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka Marwo Saacidi Yuusuf Shooriye sida natiijada uu ku dhawaaqay gudoomiyaha golaha shacabka waxaa diiday hal xubin waxaa ka aamusay labo sidaas ay ansax ku tahay waxaan u yeerinaa Marwo Saacidi Yuusuf Shooriye. sidoo kale xildhibaanada golaha shacabka ayaa akhrinta koowaad marsiiyay hindisaha dib u eegista iyo kaabista sharciga xisbiyada siyaasadda dalka waxaana golaha ka hor akhriyay wasiirka arrimaha gudaha ee xukuumadda federaalk ee Soomaaliya mudane Cabdi Maxamed Sabriye. maadaama nuqulka sharcigan la qaybiyay waxaan rajaynayaa in laga maarmi karo inaan qodob u wada marno taa beddelkeeda waxaan faallo guud oo kooban ka bixinayaa hawsha laga qabtay dib u eegista sharciga sida ku cad qodobka labaad ee dib u eegistan sharciga waxaa lagu dhaqayaa xisbiyada siyaasadda dalka wuxuuna qeexayaa arrimo ay ka mid yihiin diiwaangelintooda maamulkooda iyo maalgelintooda wuxuu tilmaamayaa shuruudaha axsaabta dhismahooda habdhaqanka iyo waxyaabaha ka reeban. qaar ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka ayaa aragtidooda ka dhiibtay sharcigan xisbiyada siyaasadda dalka iyo qodobada ku xusan gudoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha shacabka ee baarlamaanka dalka mudane Mahad Cabdalle Cawad ayaa xildhibaanada u faahfaahiyay qodobo sharcigan ka mid ah oo xildhibaanadu ay ka doodayeen. qodobada ay soo jeedinayso wasaaraddu in wax laga bedelo sharcigii baarlamaanka sagaalaad ansixiyay oo kolom ah soo jeedinta wasaaradda oo kolom ah soo jeedinta guddiga oo kolom ah iyo commentary-gooda oo ah qodobkaas waa qaadan weyne because dastuurka ma waafaqsana qodobkaas waa qaadan weyne sababta sharciga doorashooyinka ma waafaqsana qodobkaas waxa weeye siiqadiisii siday ahayd baa ku qanacsannahay waana loo keenayaa doodanaad maanta gasheen iyo tuka fiican ayaa markaas la gelayaa. gudoomiyaha golaha shacabka mudane Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan oo kulanka soo xiray waxa uu sheegay in sharciga xisbiyada siyaasadda dalka uu xilligan dalka muhiim u yahay. guddigana waxaan ka codsanaynaa si degdeg ah inaad uga soo shaqaysaan waxyaabaha ugu muhiimsan oo hadda aan ognahay waxaa waaye axsaab siyaasadeed ayaa abuurantay oo rabta dad badan waxay ku addocoonayaan waxay leeyihiin 4.5 maxaa loogu gudbi waayo 4.5 goormaa laga gudbaya axsaab siyaasadeed waddanka markuu yeesho iyo sharci doorasho uu yeesho adigii haddaa hortaagan tahay waddanka sharci doorasho inuu yeesho haddii adiga aa hortaagan tahay axsaab siyaasadeed inay abuuranto oo shuruucdooda laga shaqeeyo oo markaasi adiga aa ka hadishid 4.5 lagama gudbaayo dee adigaanba ogolayn. Ibraahim Gudle Isxaaq raadiyo telefishinka qaranka Muqdisho.